wafdigan oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay dib u soo celinta maamulka hawada Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Montreal ee dalkan Canada oo ay ku taalo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada rayidka ee loo yaqaano ICAO. hay-adani oo muddo aad u dheer maamuleysay hawada Soomaaliya ayaa wasiirka gaadiidka Soomaaliya ka hadlay xogayaha guud ee hay'addaasi ICAO haweeneyda lagu magacaabo Dr. Fang Li in guddi farsamo oo labada dhinac loo saaro sidii dib loogu soo celin lahaa maamulka hawada Soomaaliya. wasiirka oo uu safarkiisa ku weheliyay maareeyaha guud ee duulista hawada Yusuf Cabdi Cabdulle, agaasimaha maamulka maareynta hawada Axmed Macalin Xasan iyo khubaro sharci yaqaan ah. markii uu shirkaasi soo dhamaaday ayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar u waramay warbaahinta qaranka Soomaaliya. sida aad la socoto maanta aniga iyo directorkii civil aviationka Soomaaliya, our technical team iyo lawyerkeena oo jidka ku soo jira intaba waxaan Montreal u imaanay in aan la discuss gareyno hay'adda ICAO sidii aan u maareyn lahayn soo wareejinta hawada Soomaaliya in laga maamulo Soomaaliya gudaheeda. marka shirku si wanaagsan ayuu noogu dhamaaday. madaxdii ugu sarreysay ICAO-na waan la kulannay, waxaan ku heshiinay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in aan si wanaagsan isula shaqeyno, si dawladnimo ah inay noo taageeraan, in waxyaabaha naga maqan ee naga dhiman sababay in hawada banaanka laga maamulo inaan iskala shaqeyno sidii loo soo afjari lahaa muddo gaaban gudaheedna aan ku soo wareejin lahayn maamulka hawada in laga maamulo gudaha Soomaaliya. marka wasiir ma jira waqti mucayan oo la sheegay in ay hawada Soomaaliya maamulkeeda dawladda Soomaaliya dib ugu soo wareejin doonaan? waqti aan isla ka wada hadalnay wuu jiraa. waqtigaasna waxaa ka horeeyay shir technical ah oon ku kulmi doono 2 isbuuc gudahood. shirkaasi marka aan ku kulanno ayaa waqtigaasi aan finalize gareyn doonaa. annaga proposalkeeni waan u dhiibnay, waan u gudbinay, waan kala hadalnay sida aan wax u rabno, iyagana sida ay wax u rabaan way nagala hadleen. marka technical teamka ayaa 2 week kadib kulmi doona magaalada Rome ku kulmi doona, wada fariisan doona, ayaga ayaa waqti isku soo raaci doona haddii Ilaahay ka raali noqdo. in general waqtiga waa naqaan waqti aad u dheer ma noqon doono, laakiin ilaa iyo technical teamka ay ka kulmaan oo iyaga ku heshiiyaan waqti mucayan ku sheegi kara. Muxudiin Jaamac, telefishinka qaranka Soomaaliya, Montreal.